السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميلو باجوكتان كسر ولادا برنامجك أرمها جرجارك عن قسم المعلوم والبحر شعبك الصوماليات كالدول ميلو والبعالم كجوان. داوديال ما أنت وحنا الجوا قبل الصوماليات وحنوصل كنتين أباهن جرجار بلادنمو gabadha waxa loo magacaabaa Najmo Maxamed Nuur waa hooyo Soomaaliyeed oo aad u xanuunsan aad u dhibaatoonaysa. Najmo Maxamed Nuur waxay hadda koor ku soo dhaawacantay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya waxaana xaalad caafimaad loo geeyay dalka Malaysia. Malaysia in badan joogtay isbitaalka halkaas ay joogtana waxaa la yiri waxa laga ma qabo. Najmo rug ayay ka go'an tahay lugta kalena waa naafo oo dareenkeeda ayaa sii dhimanaya. waxaan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ka dhigan tahay isla markaasna walaal Soomaaliyeed ku caawiyay in hoteelka ay si lacag la'aan ah ku jiifato isla markaasna waxa kale dheeraadkaana oo dal Ilaahay ugu sii daaqay. haddaba daawadayaal waa dareemi karaysaan qof Soomaali ah ee muwaadin ah ee walaalkiin ah haddana qof dumar ah ee dhibaataysan dareenka elena waa uga karaysan. Najmo waxay haysataa laba cunug oo aan kula kulmay hooyga ama hoteelka ay ka dhigan tahay magaalada Muqdisho oo iminkaan hadda aan fadhiyo. Najmo garabkay midig ayay fadhidaa waana hooyo Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم والله السلامي والله الإسلام كسوليش اللي صاب الله عليه السلامية ومد الإسلام كأريا توصل والله نجمة محل البرباني حق بعدها وقبل حبضة يبدأ لا سعانو بحد اليوم لبض الوقت يبدأ تن والي جوي تن كان يدو أسكن نافع وحولي عن سايس كتاعنا حتى صار لابني وحيد الجراحة إذا يحملون الصداع فقد كان بسمنسا فك حبلها سعيد الدعية كان ولا سعيد شوله فهذا لو يتوصل قابل يتوصل الدواء ولا قريب حبلها واحد اختار أنت على ما قبل نحن ويز أو حتى إلا شن بلاد كهرباء أنا وهرجيس شوله كل إسلام يوم حوار يوسع ويانا خرج كتير عن كريكتي أيام هلاي مركاتي بكم بعد يستوي ولا عن يستوي يشرين وحنتي وليس ينتهي وليس يمكن تري نقطة نحليش جنا حولي لقوان كرنا كجلا هاي يوانا حبيقة مكان لكن وضمان كرنا كجلا مكان كلا يمالها حلاقة قوان كرنا بركة وليس يمكن شوفنا أدو تسلم بلي قرمدي أو قعان خطي صغير عالي بركة أدو بنتي وحوالي لاشن بلد بنجوري نروش من السيارة بس قاعدة هاي لوضع عرنا وتي انت صدام وحيا وليس ومضي صوري والسناس كده ما بيني markii dambe waxoogaa yaraa wax aan naf lahayn oo tigirka aan kala soo baxay bay noqotay tigirku ma iska soo bixiyay meeshii wasadeen nolosheeda isku maareyn waayay oo nolosheeda isku meeshaan waayay ku joognaa marka waan ka imi halkan hadda Muqdisho imi marka ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa walaal maxaa sheegaya qof walaalka oo iska dhibaataysan maanta aan xaalkiisa wax ka qabsan karaynin وهذا هو يمال طريقة الآن يسوي عاد يودي بلنتهاي حتى حالة عافمة وحياة سيرة عرض وحنا يسمى المال عرض جراحة ويسوي عن بهو يأمن تسوي فكر عن دوسة ويا بس كنا كذا تبغى خوفي عن مال ويسوي استدعاء أسطورية هي أبغى قرب هويدم بأسطورية هو ينمر لحدي جمتي هي عابدة لكن عروض لو ولا ولا نهي وارين هي inta kale wax yar ayagu aan waxbay qaban karin ama de wax maanta aan xataa hooy aan ka helinin marka saas laba daraale hooy la'aan taas lagu meel xaqin karaa ku kafaalo qaato hooy aan maanta isku bixinaysa ay qasab ku noolaanaysa qof maanta kafaalo qaadanaya leeyahay noloshaas ku maareynaya wad kaaran haysto wallahi ma haysto marka walaalada islaamka waxaan ka codsanayaa inay walaal dhibka ila qaybsadaan oo walaal maxaa sheegay dhibaatada wixii igala qaban karayaan igala qabtaan hadday xagga guriga tahay iyo hadday xagga caafimaadka tahay labadaba waa loo baahanahay ilaahay khayr siiyo wadda islaamka markii horena ummadda islaameed unbaa intaan tahay heerka ay soo gaarsiisay oo dhowr jeer gacan qabantay markaa Malaysia aan joogay aan maxaa sheegay kacday haddana waxaan ka codsanayaa anigoo baahidaydu weli sii tahay
oo aan maxaan sheegay markaan xagga joogo Malaysia dhaqaale fiican oo wax aan qorsado ma aan helin wax yaraado lacag yar aan badnayn baa heedo telefoonka kala soo baxay xataa jilsin gacanta xataa ma wada markaan imaanayay marka ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa qof bilaadan oo iska maanta dhibaataysan oo maxaan sheegay xaalkiisii caafimaad u baahan oo hooy aan haysanin carruurta yar ku haysto oo aan maanta istaagay qofkaas maxaan sheegay inkastoo duruuftana dadka bilaadanka xataa ehelka duruufta waa isku nacaan waqtiga qofka bilaadan markuu duruufaysan yahay amba xanuunsan yahay amba hadda curyaan oo kale haddana carruursii wato oo kale walaahi gurigooda amba ku astooya qof bilaadan oo kale ku qabanaya iska yar marka ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa inay wixii iga qaban karaan la qabtaan inay garab istaagaan inay wixii iga caawin karayaan inay iga caawiyaan ayaan ka codsanayaa daawadayaal ummadda islaameed ummadda Soomaaliyeed oo ummad isku danqata isku naxariisata isku gurmata Najmo Maxamed Nuur waa gabar Soomaaliyeed waa gabar walaashin ah runtii xaaladda ay ka sheekaysan waa dareemaysan qof dumar ah curyaan ah laba carruur haysata aan cidna u maqnayn waa dareemi karaysaa hooy ma haysato halka aan maanta aan ku suganayo qolkaana waa hotel qof Soomaaliyeed ayaa u deeqay ay markay ka soo degtay Malaysia ayadoo fadhida laami oo cidna ay yani ku ogeyn magaalada ayuu la kulmay walaalka Soomaaliyeed ee hotelkaas kale qolkaana isaga ugu deeqay ayadii labadii carruur hadaba walaalayaal waxaan aad idinkaga codsanayaa si naxariis iyo islaamnimo iyo walaalnimo ay ku jirto in gabadha Soomaaliyeed aad wax u qabataan cidna uma maqna ehelkeedu waxa uma haystaan waa qof Soomaaliyeed aad u duruufaysan warqadaana gacanta ku hayna waa warqadihii isbitaalka Malaysia xaaladdeeda caafimaad dhan informationkeeda ama xogteedana halkaan ku qoran yihiin dalkana waxba looguma qaban karo dowladda la joogtay halkaasna waxay sheegeen in wadamo kale ay xaaladdeeda caafimaad wax looga qaban karo hadda walaalayaal markale waxaan ka codsanayaa si naxariis islaamnimo iyo bilaadnimo ay ku jirto gabadhan walaasheen ee Soomaaliyeed inaad wax qabataan xaaladdeeda caafimaad Hindiya iyo wadamada Yurub kaliya ayaa wax looga qaban karaa lug ay ka go'an tahay lugta kalena waa naafo oo ayadana dareen maaha laba cunug ayay haysataa wax ay u qaban kartana maaha marka bal tusaale bal adiga daawana iminka iska soo qaad adigoo naafa carruur haysatid dibadda waxba lagaaga soo dirin dalka waxba aan ku ogeyn bal tusaale adiga iska soo qaad markan si naxariis iyo bilaadanimo ay ku jirto islaamnimo waxaan kaga codsanayaa in gabadhan qof walba oo daawado in naxariis islaamnimo ay ku jirto in gabadhan ku qabto maalin ayaad ku baxsan doontaan hadduu baraale ka noqdo bal idinkugu celinaya maalin ayaad ku baxsan doontaan hadduu baraale ka noqdo insha Allah aad baa wanaagsan